barasabka gobolka Togdheer Maxamed Diiri Xaydal Jir ayaa soo kormeeray hawlgalo kala duwan oo ciidamada booliska qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya gobolka Togdheer ee maalmihii u dambeeyay ka wadeen magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Taliyaha qaybta booliska gaashaanle sare Maxamed Faarax Nuur ayaa faahfaahin ka siiyay gudoomiyaha gobolka Togdheer hawlgalada kala duwan ee ciidamada booliska qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya gobolka Togdheer ay ka wadaan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Iyagoo arrimahaasi ka hadlayna waxaa hadaladoodii ka mid ahaa sida tan sidii caadada ahayd weegii hore waxaanu baadhaynaa habeen magaalada Burco maanta waxaanu baadhaynaa iyadoo ay cadceedu soo jeedo maalinimada ayaanu baadhaynaa ma aha wax cusub soo kordhay halkaanu habeen ka baadhaynay baanu maalinta haddana u bedelay waxaan doonaynaa inaanu aragno madow bay ahayd bal inaanu wax ka badan aragtidii hore inaanu muujino shalay kulay waxaan soo bandhignay ilaa 136 dhalo oo daraad qabanay iyo midiyo imikana baariseedii caadiga ahayd baanu wadnaa tii habeenkii baanu bedeleen maalinimo si aan u helno bal wax naga dahsoon inaanu helno guud ahaan gobolka Burco waa nabad weeye wax alla wax mushkilado jira ma jiraan waa nabad shaqadeedii caadiga ahayd ayuun kordhinaynaa kiina way socon doontaa waan ku dari doonaa horta habeen baan soo wadnay maantana maalin baan wadaynaa dib baan ugu noqonaynaa maalinada habeennimada inta waan wadaynaa insha Allah khayr bay noqon doontaa gobolka Burcona waa ciidanka booliska ee gobolka Togdheer oo hogaaminaya taliyaha ciidanka booliska Maxamed Faarax gaashaanle sare Maxamed Faarax hawsha ballaaran ay ku jireen habeenadan iyo maalinnimadaba ku jireen ayaan kormeer ahaan ku soo maray anigoo dhiiri gelinaya anigoo u hambalyeynaya anigoo mataqaanaa hawshii ballaareed ay qabteen ugu ducaynaya Ilaahay inuu ka abaal mariyo waxa ay ku hawleeyeen wax weeye wax kastoo gobolkeena wax yeelaya hadday nabadgelyada tahay iyo hadday tahay mataqaanaa muqaadaraadkaba aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya muddadii ay hawshan ay ku jireen hawsha ballaaran ee taliyaha iyo ciidankiisu ay qabteen ee u dambeysay taashalito fitiska khamriga lagu qabtay khamrigaas waa khamri dhacay gobolkeena loo soo waaridayo waxa lagu waxyeeleynayaa dhaqankeena waa Saciid Cali Cusmaan Xaalays telefishinka caalamiga gobonimo magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.